adeegan cusub oo ay soo kordhisay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa laga daafuray magaalada Muqdisho. ugu horeyn waxaa bulshada ka qayb gashay soo bandhigista adeegan uga mahad celiyay madaxa iibka Somtel Cumar Maxamed Nuur, isagoona sidoo kale ka sheekeeyay horumarka bulshada ay Somtel ku soo kordhisay tan iyo markii laga asaasay Soomaaliya. waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta dadkii lagu casuumay ka kala koobnaa ganacsatada iyo stakeholders kale ee gobolka Banaadir inay maanta dacwada naga ajiibaan ay nagala soo qayb galaan furitaanka xafladan muhiimka ah ay Somtel maanta ku soo bandhigayso adeeg cusub oo la xiriira dhanka voice inta kadib sida loo socotaan shirkadda isgaarsiinta Somtel waa shirkad weyn aad u ballaaran kana howlgasha dhammaan geyiga Soomaaliya. koonfurta Soomaaliya markii shirkaddan ay timiday 2013 August ilaa iyo hadda suuqa telecommunication-ka wax badan ayay ku soo kordhisay sida la socotaan ayadoo laga hadlayo dhanka voice-ka iyo data-da. Somtel waxay caan ku tahay markii laga hadlayo dhanka isgaarsiinta voice iyo data. markaan data-da ka hadalno waad ogtihiin waa shirkaddii ugu horeysay Somtel Soomaaliya ee keentay adeegga la yiraahdo 4G+. adeegan oo lagu magacaabo Muraadso ayaa waxtarkiisa iyo baahida bulshada uu ka qabtiri doono. warbaahinta waxa uu sharaxay madaxa suuqgeynta shirkadda Somtel Axmed Ciise Xaaji. dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin marka koowaad waxaan ugu hambalyeynaa adeegan cusub ka qabtiri doono dhinaca ku hadalka gudaha adeegan oo la magac baxay adeega Muraadso waa adeeg dadka macaamiisha u sahlaya inay ku hadlaan 24 saac si bilaash ah ama isbuucii si lacag la'aan ah. adeegan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah mid aad dooran kartid 24 saac inaad ku heshid si bilaash ah adigoo dhiibaya ama ku shubanaya $1. halka midka kale uu yahay isbuucle oo aad $3 oo qura aad ku hadli kartid isbuucii oo dhan free calls unlimited calls waxa loo yaqaano adiga macna hadal oo hadaalin barnaamijkan ayaa loogu magac daray koodka lagu galana wuxuu yahay xidig 202 afar gees. Cabdi Faarax Axmed oo ku hadlayay afka madaxda shirkadda Somtel ayaa soo dhaweeyay adeegyadan cusub isagoona bulshada ugu bishaareeyay in ay ka faa'iideystaan fursadda Somtel ay macaamiisheeda u soo kordhisay. Somtel baryahanba aad bay u soo dadaal badan bay soo sameynayeen barnaamijkan hadda ay soo sameeyeenna wuxuu aad u anfacayaa dhammaan shacabka oo dhan siiba dadka gobolada aad ugu shaqeysta hadda sida dahabka iyo hawlo badan ku qabsada aad buu u soo anfacayaa barnaamij aad u fiican waaye dhammaan dadka danyarta oo dhanna wuu anfacayaa. waxaan leenahay dahabshiil Somtel inay dadaalkeeda sii badiso oo sii kordhiso waxyaalo badan oo ka sii harsan oo hadda oo dadaal badan ah. ganacsatada ay bahwadaaga yihiin shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa bogaadiyay adeegan cusub ee shirkaddu ay soo kordhisay iyagoona ka mahad celiyay. marka aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa Somtel adeegaas ay noo fidiyeen. waxaan rajaynaynaa siiba shirkaddeena Dayax Modern Houses inay ka faa'iideysato adeegaas Somtel oo soo bandhigtay nidaam aad iyo aad ugu sahlaya shirkadaha inay iskula xiriiraan qaybahooda kala duwan oo gobolada ama magaalada dhexdeedaba oo u fududeynaya inay koostigii koolasha ay yareeyaan. waxaan ku faraxsanahay xafladan weyn oo loo sameeyay Muraadso bandhiga ay soo bandhigeen Somtel ee ku saabsan adeegan. waxaan rajaynayaa in ay ummad fara badan ay ka faa'iideysan doonto. Maxamed Amiin oo ku hadlayay afka ageensiyada iibgeeya adeegyada shirkadda ayaa soo dhaweeyay adeegan cusub isagoona ballan qaaday in ay gaarsiin doonaan bulshada ku tixan adeegyada shirkadda Somtel.
hadal oo hadaalin dabcan waa adeeg loo baahan yahay dhammaan bulshada Soomaaliyeedna ay maaragtay ka faa'iideysan karto gaar ahaan macaamiisha isticmaasho adeega Somtel ee aad ugu sii faa'iideysan karaan ka ajanti ahaan barnaamijkaas isaga ah waa soo dhaweynaynaa macaamiisha waa gaarsiin doonaa insha Allah sidoo kale maamulka iyo madaxda shirkadda Somtel waxaan ugu mahadcelinayaa barnaamijkan isaga ah ee balaariyaan dabcan sida noola sheegay 50 daqiiqo ka soo bilaawday $1 lagu hadlayo 100 daqiiqo haddana 140 daqiiqo maraya waxa arkaysaa inta ay shirkadda jirtay isbedelada muuqda ay soo bandhigtay sidoo kale hadda waxay soo kordhisay laba adeeg oo ah $1 ku hadal 24 saac oo hadaal oo ay ka faa'iideysan karaan odayaasha ganacsatada iyo dhalinyarada gaar ahaan waliba waa istaqaana dhalinyaradaas ay ka faa'iideysan karaan iyo sidoo kale $3 oo isbuuc ku hadal ah dabcan waa barnaamij muhiim ah oo loo baahnaa waqtigeedana imaaday waana ugu mahadcelinaynaa dhammaan maamulka shirkadda Somtel waana soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa inaad ka wada faa'iideysan doontaan barnaamijka shortcut-ka loo diyaariyay xidig 202 ayuu ahaan doona marka dhamaanteen iyo inta kale bulshada waxaan rajaynaynaa ka wada faa'iideysan doonaan waana ugu mahadcelinaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum adeegan oo halku dhig looga dhigay hadal oo hadaalin ayaa ka mid noqonaya adeegyada daboolay baahiyada macaamiisha Soomaaliyeed ee ku xiran shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Maxamed Cabduqaadir Zilfa, Galmudug TV, Muqdisho.